unbaa taweyna la maarayn karaa iyaan ka wadaa intaas bulshadeenii ku soo baraarugay sicid gabagabada barnaamijkan midnimo dhaqaale ummadeena si aan ugu abuuri karnaa maanta way kala daadsan tahay way adag tahay laakiin mustaqbalka dhow haddaan ka shaqeyno u diyaar garowno dadkeena abaabulno maskaxiyan aynu bal waxaan dhaana aynu fahansiino waynu gaari karnaa dadkeenu ma dad xun xaqiiqan Soomaalidu dad aad u talaan dad abuur leh maskax furan Itoobiyadeena kala markaad eegto waxaan xasuustaa xilligii jaamacada Aljazeera iyo BBC deenaga xilligan daawan jirnay ma dhaweyn markaad ka sheekayso Aljazeera Center iyo maxayba uu yaabaya Ethiopia TV mu sheegay kulay mayba deeyada kulay dad dul sheegin yani wadninkaasi ma dhaafsisana intan inaguna dadkeenu waa dad caalamka geeska kala ka warayso Soomaalidu waa baa information marka ummadaas noocaas aan leenahay laakiin waxa ka maqan wacyi fara badan سينو أبوكنا من نمط قال سعيد أبو ضمنتي بسم الله وحفلي من نمط قال إنها أبورو ما دام الشيء مهمة إلى هذا عن صفة عن الضانو قياس كرنو كما فرصان يسوع إلا سمية دراسة توصل بلادن وكوقتهما وعي كشري أمانتي يو الدنيا حقه وصعده يلا أول لقيت ولي رغم كدتك كوحك لدون وكوح حاجة سكتر كدولة ده ganacsato dad shacab aqooyahan in la sameeyo researchiyo adduunka meel walba iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ummad lagu horumariyo waxaan marka ugu horse laga sameeyo daraasad waa in la ogaado ummadan la doonayay in dhaqaalaheeda la mideeyay oo la horumariyo waxyaabaha weaknesskeeda waxyaabaha dhinaca macnaha ay daciifka u tahay u jilicsan tahay waa in miska la soo saaro waxay dhinaca u adagtay strengthskeeda waa in miska la soo saaro waxyaabahaas oo la isku diray daraasadka laga soo saaro wuxuu u baahan yahay commitment وإن سيك قلنا شله واحد فلنيسا هذا أنت بدن دولة نقول دون تاي أنت دقن قلنا دون تقدم بنت واحد نقول دون تشعب كل بقاب كل هذا بقى لينا يقيم لي بحكي يقولنا كقاعدة دونا لكن أنا وحن سوكاب لها إن أمضي من نمط قال الله سميه إن هي كهرة دراسات لما يصير إلا سميه دراسات كسوق قطمة علم بارس لا حد دارين نلش هذه تهي مركها ما أنت واحد مرة نهر wax walba oo dadkeeni maanta ay haday xabuuba ugu yaro in loo soo dhoofiyo naloo keeno dadkeena forsan waayaan dan dhinacaas maxaa dadka sabab ah nolosha bini'aadamka haduu qofku oo daciif noqdo ama uu ku xogan yahay laba waa in ogaad inta la barbar dhigo waa in laga soo saaro percent fiican oo macna ugu dambeynta benchmark noqon karo oo laga go'aan qaadan karo marka waxaan dhilahaa waa in ugu horeyn daraasad la sameeyo maxaad faraysaa dadka waxaan farayaa dadkeena ku daawanaya maxaad faraysaa saynu uga baxno waxaan dhibaatadan maxay nala gudbun waxaa nala gudbun sida aan filayo in ay shacabku ay u dhagan nuglaadaan awaamirta dawladda ku dhaqmaan iyada oo waliba hadda marka horena aan sheegay aan ku celiyo waxyaabo in shacabku ay u dhagan nuglaan waayaan awaamirta dawladda waxyaabaha la qabsalaan kaliya maaha waa xagga curriculum waa arrin manhajka la xidhiidha weeyaan dadku muddo dheer ma aysan fursad u helin in wixii ummadda ku shibgrinayay waxyaabaha noocan aan ka sheekeynay in la qaato iyadoo Ethiopia inteeda kale maanta ay si sahlan loo qaadan awaamirta dadkan inay qaadan waayaan madax adag iyaga u dhashin oo kaliya maaha waa arrin ay ku sababtay xaaladii kala duwan ee la soo maray taa laftirkeeda dawladda wax looga fadhiyo daraasad in lagu sameeyo oo la xalliyo kadib baa la gaari